fadeexad culus fanaanada rasmi rees oo kaligeed aroos dhigatay kadib markii uu ballanka uga baxay fanaanka Farxaan Yare. marka hore fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo si aysan ku dhaafin waxyaabaha aan soo gelino. maxaa ku kalifay fanaanada rasmi rees inay kaligeed aroos dhigato? yaa ku diray saygeedii? yaase ka dambeeya dhibkan oo dhan? sidee suurtagal ku tahay in fanaanada rasmi rees xaajigeedii ay ku haminayso inaan mar uun aqal gasho oo sidaas sahalka ah ku dhaaf? fanaanada rasmi rees ayaa waxaa ku dhacday taariikh aysan abid ka soo kabsan doonin, taasoo ah in loo diiday ninkii ay isguursan rabeen ee Farxaan Yare. fanaanka Farxaan Yare ayaa asbuucii la soo dhaafay waxa uu yimid magaalada Nairobi, wuxuuna u yimid inuu arooso fanaanada rasmi rees, balse markii uu yimid ka bacdi maxaa dhacay? inta aan faafahinta ugu galin waxaan jeclahay wax yar inaad la daawato qaabkii quruxda badnaa ee rasmi rees u soo dhaweysay saygeeda cusub oo ay doonayso inay la wadaagto nolosha. sida aad arkayseen fanaanada rasmi rees waxay u soo dhaweysay fanaanka Farxaan Yare qaab aad iyo aad u qurux badan ka oo laga dareemayo maxabada iyo jacaylka ay u qabtay Farxaan, balse sidii ay ku haminayso ma aysan noqon oo jacaylkeeda wuxuu noqday barkumataal. haddaba yaa baajiyay arooska lamaanahan? sida wararku nagu soo gaarayaan fanaanka Farxaan Yare markii uu soo aaday Nairobi ama uu u imaanayay jacaylkiisa rasmi rees ma uusan ogeyn familkiisa, ma uusan ogeysiin iyo dhammaan ehelkiisa iyo waalidkiisa, hooyadiis, aabihiis iyo dadka dhan iyo walaalihiis qofna ma uusan ogeysiin oo iska soo baxay. sida arkaysan cid la socotay ma lahan oo garoonka markuu soo degay waa arkaysan qofka soo dhaweynayay dad badan baa la socday laakiin asoo kaligiis u ahaa. balse markii uu magaalada Nairobi yimid oo jacaylkiisa u yimid la sheegay oo sida la rajeynayay arooskooda uu dhici rabay maalinta oo Farxaan yimid maalintii ku xigtay ma aysan noqon sida la rajeynayay oo asaga wiilka Farxaan familkiisa gaar ahaan aabihii ayaa u diiday inuu arooso fanaanadan rasmi rees. Farxaan aabihiis waxa uu sheegay in uusan kala tashan markii uu soo baxay iyo in uusan ogeyn inuu Nairobi aadayo. sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan inuu Farxaan aabihiis ugu shakisan yahay in fanaankan la sixray maadaama si degdeg ah ku baxay oo uu ku aaday naagtan. waxaa la sheegay in fanaanka Farxaan Yare aabihiis uu yiri Farxaan Yare duco iyo habaar mid qaado oo ama warkayga yeel ama habaar qaado oo rasmi raac. muddo dheer kadib markii buuq sii batay waxaa la sheegay inay familku soo dhex galeen kadibna ay kula taliyeen inuu bal horta soo laabto oo meesha ka tagay ku laabto kadibna la xalliyo khilaafkan. sida la sheegay fanaanka Farxaan Yare waa uu aqbalay soo jeedinta familkiisu ay soo jeediyeen inuu ka soo laabto Kenya, balse fanaanada rasmi ayaa sida la sheegay ku adkaysatay inuusan Farxaan bixin, bal iska dhaafay markii uu bixi lahaay ay ka xigto inay booliska ku dacweyso oo ay xirto. weli taariikhda Soomaaliya lama arkin guur qasab ah oo lagu isku qasbayo oo naagtu ay ninkeeda xiraydo, laakiin tan waxay noqon doontaa haddii ay dhacdo ugu wallo aan weli la xaqiijin. fanaanka Farxaan Yare ayaa waxa la sheegay inuu ku xayiran yahay magaalada Nairobi. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in dhalinyaro badan oo la saaxiib ah rasmi rees iyo dhalinyaro kale oo ay qaraabo yihiin fanaanka Farxaan Yare ay arinta galeen isku dayeen inay xaliyaan, balse ay xalli waayeen oo fanaanka Farxaan Yare uu ku adkaystay inuusan bataata naagtan rabin oo hadda qasab ku dayaysa oo sanna familkiisa siisanay naag oo sanna aabihiis hooyadiis ka raaceen jacaylkiisa. waxaa la sheegay intaas kadib in fanaanada rasmi rees ay iska qoosatay Farxaan Yare oo magaalada hotel ka degay gurigeeda ka tagay. fanaanada rasmi reesna markii uu ka tagay ay iska qabsatay arooska sida arkaysiin oo fiidiyowga aan soo bandhigay ku arki doontiin waxay ku dhigatay gurigeeda kaligeed iyadoo ah waliba oo aan qofna la joogin. bal horta wax yar ila daawada arooska ay dhigatay fanaanadan. sida arkaysan fanaanada rasmi rees gurigeeda ay aroos ku qabsatay oo ay kaligeeda ay ku badboodisay. markii la weydiiyay sababta ku kaliftay arintan waxay ku jawaabtay inay stresska isaga yareenaysay maadaama uu aroos dhan ka fashilmay.
Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nabsi ama biljir ama berijir ama isha baarkeeda saaraw oo macnaha loola jeedo nabsigu ama bilbow ka maqnaanaya ama hal beri ama isha baarkeeda ku saaran isla markaasba ku dhacaya. Fanaanada Rasmi Reis waxaan ogeyn hadda ka hor ayadoo isku dayday inay aroos ka qasto fanaanadii saaxiibteeda ahayd Sacdiya Siman oo ina isku da'da ahaayeen. Sida aad wada ogsoonaydeen fanaanada Rasmi Reis waxay is yaqaaneen oo isgaranayeen wiilka lagu magacaabo Saki oo guursaday fanaanada Sacdiya Siman waxayna ahaayeen qaraabo dhow. Sidaa daraadeed Rasmi Reis waxa ay rabtay in ay wiilkan is yaqaanaan ee Saki ay ayadu guursato oo ay ka buriso ama ay ku dirto saaxiibadeeda fan Sacdiya Siman taasoo u muuqatay qiyaamo aad u xun oo ay ku sameynayso saaxiibteed, balse khilaaf dheer kadib waa la xaliyay oo arooskii Sacdiya Siman waa uu dhacay oo Saki wuxuu fiirsaday jacaylkiisa ee qaraabanimo midna ma u safiirin. kabacdi muddo dheer kadib waa la heshiisiyay Sacdiya Siman iyo Rasmi Reis, balse nafsigii ay maalintaas ka gashay saaxiibteed ayaa waxay u ogtahay inay hadda ka soo baxay oo waliba si dhaqso ah uga soo baxay maadaama jacaylkii ay ku haminay oo ka fashilmay oo ay isdhaafeen. Ma ahan markii ugu horeysay ee laba fanaan ay ku kala tageen qaab noocan oo kale ah. waxaa jirtay fanaanada Farxiyo Fiska hadda ka hor mar ay isguursadeen Bashiir Hanuuniye ayaa waxaa dhacday hooyada dhashay Bashiir Hanuuniye ayaa waxay soo samaysay hees ay kula dardaarmaydo wiilkeeda Bashiir Hanuuniye oo ay leedahay iska dhaaftan naag kama raacayse naag kale ka raadso, balse waxaa la siiyaa waxay ahayd isla heestaas oo ay samaysay Bashiir Hanuuniye hooyadiis ayaa waxaa la xameeyay Hanuuniye oo ah Bashiir Hanuuniye aabihiis. balse marka la isku fiirsho labada qiso oo Rasmi Reis iyo Farxiyo Fiska farqi aad u weyn u dhaxeeyo, waayo Farxiyo Fiska waxay ahayd qof aroos ah oo inta la aroosay guri la geystay aroos qurux badan loo dhigay oo jacayl jilaysay, laakiin Rasmi Reis ma waysan isla guri taginba oo banaanka ayaa lagu kala tagay. ma aha wax lagu farxo dabcan, mana aha sababta aan soo bandhigayna inaan ku faraxsanahay, laakiin waxa dhacay ayaa ahay wax lala yaabo. fanaanada Rasmi Reis ma ku faraxsanin dabcan jabka ku dhacay iyo xanuunka ka soo gaaray jacaylkan maadaama ay wax aad u daran tahay. waxaa suurtagal ah in wax kas isbedelaan maadaama laba qof oo bani'aadam yihiin, balse fanaanada Rasmi Reis waxaan kula tali lahaa aniga ahaan inay ka fiirsato mustaqbalkeeda iyo guurkeeda qofka ay la wadaagayso nolosha. sidoo kale waxaan kula tali lahaa inay iska dhaafto luqaafada dadka saaxiibadeeda ama dadka ay is yaqaanaan iyo guud ahaanba dadka jacayl ka dhaxeeyo maadaama arrintan ay ogtahay arrin nafsi sababay. odayaal waxaan isku dayi doonaa haddii Ilaahay idmo inaan labada fanaan Rasmi Reis iyo Farxaan Yare mid ka mid ah aan xiriir la sameyno oo aan channelkan soo fadhiisano si ay faahfaahin guud noo siiyaan. haddii aan nahay bahda Alpha Media Group waxaan u taaganahay soo bandhigista xogaha daahson. waxaan ka codsanaynaa intiina ku cusub channelka inaad subscribe saartaan, calaamadda gambeelka ahna furataan si ay idin dhaafin hadba xogaha muhiimka ah ee aan halkan soo gelin. daawadayaal waa mahadsantihiin, waxaan kaga sii tagaynaa fiidiyowga arooska ay Rasmi Reis kaligeed dhigatay. wadna ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan haddii aad channelka ku cusub subscribe saaraan, calaamadda gambeelka ahna furo. mahadsanidin.